iyadoo adduunka oo dhan uu u xayiran yahay cudurka COVID-19 awgeed. Shirkadaha filimada sameeya ee dalka Hindiya waxay wajahayaan dhibaato xooggan oo dhinaca dhaqaalaha ah, maadaama filimadii shaqadooda laga kala dhaqaaqay shaleemooyinkiina ay xiran yihiin xilli xidigihii filimada ee guryahooda ku xareysan yihiin. Bilihii lasoo dhaafay xilligan oo kale, taageerayaasha Bollywoodka ee caalamka ku nool aad bay u faraxsanaayeen. Filimkii ugu dambeeyay uu hagayay Rohit Shetty ayaa la sugayay in shaleemooyinka laga daaro 24kii bishii Maarch. Dadkii sameeyay filimkaasi oo lagu magacaabo Suryavanshi waxay filayeen in si weyn ugu gadmo suuqa filimada ee box office-ka, sababtoo ah sii deynta filimka waxaan si aan kula talagal ahayn ugu soo aaday maalin Hindiya ka ah fasax qaran. Laakiin halkii taasi la filayay, waddanka oo dhan wuxuu galay maalintaasi xayiraad 11 maalmood ah si loo istaajiyo fiditaanka cudurka COVID-19. sidaas darteed sii deynta filimka Suryavanshi waxaa dib loo dhigay waqti aan la cayimin. Waxaa sidaasi oo kale nasiib daro ugu dhacday filimka lagu magacaabo 83 ee hagaya Kabir Khan, oo ah filim laga sameeyay kooxda reer Hindiya ee ku guuleysatay koobka adduunka ee cricketka, waxaana jilaya lamaanaha dhabta ee kala ah Raveen Singh iyo Deepika Padukone. Filimkaasina wuxuu ballansanaa 10kii bishii Abriil. Khan oo ka hadlayay janaalkiisa YouTube-ka ayaa yiri, arintani aad bay niyad-jab u tahay. Runtii waxaan faraha noo cuncunayeen inaan filimkaasi u fasaxno caalamka, laakiin xaaladda waxay isu beddeshay mid si aan ku fikirayni ka weyn. Dunida oo dhan ayaa maanta xayiran, sidaas darteedna waxay ila tahay daawasho filim waa laga muhiimsan yahay. Atriishada caanka ee lagu magacaabo Kangana Ranaut waxay duubaysay jilista filimkeedii cusbaa ee ka waday gobolka ku yaala koonfurta Hindiya ee Tamil Nadu, laakiin waxaa ku bilowday amarka xayiraadda ah. Qorshuhu wuxuu ahaa inaan halkaasi joogo 45 maalmood, balse noolama ogoleen inaan dad badan isku keeno. Duubista ayaa la joojiyay, anigana waxaan dib ugu soo laabtay Mumbai, ayay tiri. Atriishada lagu magacaabo Deepika Padukone waxay sheegtay in aad u nasiib badan tahay, sababtoo ah waxay qorsheynaysay inay u duusho waddanka Sri Lanka si ay halkaasi ugu soo bilowdo duubista filimkeeda cusub maalmo yar ka hor inta aan xayiraadda la gelin. Arrinta fiican waa inaanan ka bixin Mumbai, kuma aanan xayirmin meel kale. Waxaan garanayaa dad badan oo filamadooda gabagaba u ahaayeen oo isaga soo cararay, ayay tiri. Jilayaasha ayaa dhammaantood ku wada sugan guryahooda, waxayna shaqooyinkooda ku qabanayaan gacmahooda maadaama aysan jirin shaqaale la ogol yahay in guryahooda ka soo baxaan. Qaarkood sida Deepika Padukone iyo Katrina Kaif weelashooda ayay gacmahooda ku dhaqanayaan. Kuwa kalena sida Alia Bhatt iyo Hrithik Roshan waxay baranayaan xirfado cusub. Kuwa kale oo ka mid ah jilayaasha waxaa lagu eedeeyay in si dhab ah u qaadan waayeen xaaladda lagu jiro. Farah Khan oo ka mid ah agaasimayaasha filimada waxay muuqaal ay soo dhigtay Instagram-keeda ugu hanjabtay inay xiriirka u jari doonto qaar ka mid ah saaxiibadeeda caanka ah haddii ay joojin waayaan muuqaalada jimicsiga ah ay soo dhigayaan. Waxay tiri, waan fahmi karaa in noloshiina idiin toosan tahay oo aysan jirin wax aad ka walwalaysaan. Adduunkan oo cudurka safmarka ah qabsaday, annaga inteena badan waan ka walaacsannahay xaaladan xun. Qaarna waxay barahooda xiriirka bulshada u adeegsanayaan dhinaca wacyigelinta. Kartik Aaryan wuxuu soo bandhigay muuqaal ku saabsan wacyigelinta kala fogaanshaha. Qaar badan oo ka mid ah toorayaasha iyo atriishayaasha Hindiya waxay iyaguna ka qayb qaadanayaan caawinta dadka uu saameynta dhaqaale ku yeeshay amarka xayiraadda ee uu sababay coronavirus. Akshay Kumar iyo Anushka Sharma waxay lacag mucaawino ah ku dareen sanduuqa caawinta ee Ra'iisul Wasaare Narendra Modi, kaasoo loogu talagalay malaayiin qof oo ka mid ah dadkii lacagaha maalinlaha ah ka qaadan jiray shaqooyinka ay qabtaan. Saaxiibadood intooda badan waxay bixiyaan lacago noocaas oo kale ah, iyadoo hadda la isla dhex marayo warar ku saabsan in lasii kordhin doono xilliga ay soconayso xayiraadda. Waxaa la filayaa in isbedelo waaweyn ay ku imaadaan Bollywoodka, laakiin jilayaasha iyo agaasimayaasha Bollywoodka waxay ka warqabaan in habsaanka ku yimid shaqooyinkooda ay ka daran tahay saameynta dhibaato ee haysata dadka saboolka ah.